iyo sheekadii adduuni khatar qaybteedii koowaad. dhegaystayaal, hilaada sheekadani waxay ku aadan tahay bilowga ama bartamaha qarnigii 19aad. meeshuna waa agagaarka Buuhoodle iyo tuuraha markii ay rooban yihiin aan indhaha loo dhammayn karin. waa hawdka dhaqashada geela la moodo inuu eebba ugu talagalay markii uu dhulkiisa meelba wax ugu talagalayay. niman isbiday oo xoog iyo xoolaba sheegtay ayaa degan. hantida lagu dhaataa waa geel iyo faras colka looga ilaaliyo. dhaca iyo dilku waxay ahaayeen xeer aan qorayn oo cidina aanay cid kale kula yaabi jirin. kolkii ay ribato oo arrini ay geesna u bixi weydo, ma jirin awood dhexe iyo dowlad loola cararaa aan ahayn odayadii tolka ee inta badan taladooda la diidi jiray. mararka qaarkoodna iyaga laftoodu ay dab oogan sii oogi jireen. gaalo dhulka ma iman oo qori iyo rasaasi weli gacanta reer miyiga ma soo gelin. laba waran, hooto dhagaley ah, gaashaan, fallaar maliidaysan iyo faras baxdow ah, qoladii meel ka buuxsata ayaa geyiga ugu taagroonay. wax la cunaa waxay ahaayeen cad iyo caano iyo midhaha ay dhistu bixiso oo xilligaas lagu gaajo beeli jiray. inkastoo markii dabin la joogaba ay safruhu timir ka keeni jireen, haddana soor magaalo waa lagu diimi jiray. inay wax kala maqan tahayna lama ahayn. muddo kolkii la joogo ayaa loo safri jiray magaalooyinka xeebaha ku yaalo laga soo gadan jiray 2 go' oo bafta ah oo raggu qaadan jiray iyo hadba wixii marashi ah oo dumarka looga soo helo. haddii la waayana rag iyo haweenba dhuu harag loo yiqiin ayaa la xiran jiray. waxay qabeen noloshaas fudud ee ay ku jireen inay nololaha ugu sarrayso oo qolo qadan iyo haybad ku haysataa aysan ifka ku dhaqnayn. nin walba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira oo isaga ayaa boqor isu ah. ilaah mooye cid kalena wax uma oga. haddaba maalin maalmaha ka mida aminta oo jiiraal ah, agagaarka Buuhoodle ceel ku yiil xoolihii ha loo soo aroorsado. dhawaaqii heesta geela ayaa isu baxday. barbaarba barbaarka uu ka qayla dheer yahay ama uu ka cod wanaagsan yahay ayaa loo dhegtaagayaa. ceelkana rag keliyihii ma joogaane waxa iyaguna ku sugan hablo quruxdooda lagu sheekaysto oo ama arya soo aroorshay ama markii mawga loo buuxiyo dhaamanka la caraabi doona. kuwaas ayay barbaartu isha iyo laabtaba ku hayaan marka ay jawaabta geela ku dheeraysanayaan ee ay codkooda intii ay gaarsiin karaan gaarsiinayaan. hawsha shubaasha waxaa ku dhex qarsoon tartan hoose oo loogu jiro u bogidda dhadigoodka bilicdasan. hebel dhawaaqiisa ma maqlaysay? codkiisu ma ku soo jiitay? muuqiisa ma la yaabtay? kolkii uu walaanta baaxinayay muruqiisa ma u fiirsanaysay? ayay ahayd sheekada habluhu kolka ceelka laga fulo ee la guryo taga iyo weliba dhammaan maalmaha labada kalo u dhaxeeya. ha ahaatee nin karmeed oo idili wuxuu ku dadaalayaa dhaqse intuu shubto inuu casar dheere dhabaha cagta u saaro geel iyo farda wixii uu soo aroorsaday, fiid horaadkana uu xeryahoodii hortubo. taasise waa caadada nindoorka maalinta ceel sida wacan ugu darbadee. waxaa jira mid goor dambe ceelka xoolaha keena oo hadhowna uu gabalku ugu dhaco, waalkiisna uu ku maadsado. waxaa isna ka daran midka kala daadsan ee isaga oo aan saabaankii iyo yeeshii aroorka wadan isa soo dhiga. rag kale yeeshiis ayuu isku halaynayaa, waktiguna baryo lagu naco ayuu uga idlaadaa. wuxuu kororsadaa in la kahdo haddiiba qabaal dar ama wadaan uu ka helo tol iyo xidig kolba ciddii uu dawda kula kulmo. maalintaas iyada ah ayaa waxaa ceelka joogay oo durbo xoolihiisii waraabsaday nindoor Axmed Samatar la oran jiray oo burgal lagu naanaysi jiray. dabadeed isaga oo hawshii shubaasha ka nasanaya ayaa waxaa u yimid nin kala daadsanoo ay aqoonni ahaayeen, yeela-aanna uu geeliisii weli la ooman yahay. ninkaa oo isna la oran jiray Maxamed Cabdilla Liibaan ayaa wuxuu burgal weydiistay geela ha ku shubtee inuu qabaalkiisa amaahiyo. burgalna duraansigiisii wuu ka yeelay, marba haddii aanu isagu qabaalka hadda u baahnayn, haleeladiisuna ay wabax tahay.
ina cabdilla liibaan oo weli qabaalkii haystay geeliina bar u cabbay ayaa waxaa isaguna ceelkii yimid barbaar qoys ka dhashay oo wixii uu doono hoo mooye aan maya lagula dhici jirin. waa Cumar Aadan Galayd. waa 20 jir ay 11 rag ah oo wada gaashaan qaada ay walaal ahaayeen. waxaa ka daran oo goobaha xasarada iyo dagaalkaba uga hormara aabahood Aadan Galayd oo geesinimo, kibir, madax adayg iyo hanti adduunyaba loogu roonaaday ayna la ahayd inaan intaasba cidina kula tartamin. Burgal waa ninkii qabaalka lahaa waxay degmo qura ka soo arooreen Cumar Aadan Galayd iyo wiilashiisa oo tabar iyo taagba ku dhaadanayay ayaa waxaa la deganaa beel idil oo hooskooda harsanaysay saha colaadeed maalintii uu muuqdana gaashaankooda ku gaban jiray. beelahaas dallada difaaca Aadan Galayd iyo jilibkiisa ku hoos noolaa ayuu Burgal ka mid ahaa. isaga iyo intii la ayniga ahaydna uma bannaanayn inay ku gacan sayraan amaba ay diidaan tala kasta oo reer Aadan Galayd oo kale ay soo jeediyaan. taas isaga oo ku tashanaya oo og Burgal iyo yeeshiisiiba inay ceelka uga horeeyaan ayuu Cumarna qabaal la'aan geeli soo aroorsaday. Burgal oo weli nasanaya intuu soo abbaaray ayuu ku yidhi, warkac oo qabaalkaagii ii keen aan geela ku waraabsaday. halhaleed ayuu isna u beegsaday dawdii uu Maxamed geela ku waraabsanayay si uu Cumar qabaalka ugu keeno. Maxamed wuxuu ku jawaabay, wargeelii weli barbaa iga oomane ii kaadi aan israaciye. Burgal baa inta Cumar ku soo noqday intii uu Maxamed ku yiri Cumarna intuu dhab u canaantay ayuu kol labaad dib u celiyey. markaasna isaga oo aan qabaalkii wadin ayuu Maxamed ka soo noqday. Cumar Aadan oo maraha dhowr halaad oo uu geeliisa ugu jeclaa ay ku oloreen ayay cara digsiisay oo inta Burgal haaraan iyo canaan ku asqaysiiyey mar saddexaad dib u celiyey uguna hanjabay hadduu boogaan faramaraan ula soo noqdo daqas dhiigle inuu iska hoorin doono ceelkana kala caraabi doono. labada nin ee dhexdooda ay Burgal kabuhu kaga dhammaanayaan waa Maxamed iyo Cumar. waa ilma adeer awowga ay ku kulmaan uu aad u dhow yahay. mar saddexaad ayuu Burgal ku noqday Maxamed oo aan waraabintii geelu u dhammaan kuna yidhi, Cumar Aadan baa qabaalka doonaye Maxamedow biyo dambe oo aad ku shubtaa yeejidin. Maxamedna barbaarkii ka buuxsamay buu ahaaye intuu yidhi waan caroonayaa ayuu sidii magangooye la maagay isugu soo kogay. murtis meel dhow ugu mudnaa intuu la soo booday ayuu qabaalkii bartanka kaga dhuftay oo darooriyey. saa wixii biyo ku jiray oo dhan baa mar qura ciidda ku arooray. isagiina halkaas ayuu ku dhaqan beelay. Burgal baa markaas si degdega Cumar ugu soo laabtay wixii dhacayna u tabiyey. Cumar oo hadalkaas loo sheegay ramadkii iyo rimaydii uu soo aroorsadayna ay weli ka dul ololayaan maxaad ka filaysaa. dhulka ayaa la wareegay. xiniya taabad ayuu u qaatay. murtisku inuu qabaalka ku dhacay uma uu qaadane wuxuu u qaatay in isaga lagu dhuftay. dabadeedna wuxuu fali lahaa kama uu fakerin mana uu labalabayn. durba waxaa ku soo dhacday dagaal nin ka tashaday ma galo mahmaahdii ahayde warankiisii ayuu midigta la hela. dawdii in Cabdilla Liibaan uu geela ku waraabsanayay ayuu tallaabo fudud ugu dhaqaaqay. kolkii uu la sinaana kaalkii uu maanta oo kale u tuntay ayuu naaska bidix hoostiisa kaga tumaatiyey. wadnihii ayuu laba ka dhigay. markaas baa afka iyo feeraha sare dhexdoodaba waxaa ka soo butaacay dhiig kulul oo dacdii ceelka inta dhalan rogay casaan ka dhigay. Maxamed Cabdilla Liibaan iyo qabaalkii oo is-ag yaal la isuguna aaray ayaa la soo wada dul joogsaday. mid waa maydo waa Maxamed, midna waa darooraa oo waa qabaalka. rag allow qof iyo qabaal ma la isugu aaraa mase Soomaalida oo keliya ayay waagaa ka suurowday welina ay ka suurowday. durbadiiba warkiibaa faafay. ceelkii wax ka dhaceen kuma uu sinaane intii aan qoraxdii dhicinba carsintiibuu wada saabtay. waa la oogsaday. dhiilla xun baa geyigii ku fiday. colaad baa soo yeelyeelatay. awal waa la isdhex deganaaye haddiiba waa la kala fogaaday. waa la isu uursamaaye waa la kala ufooday. waxaa muuqatay haddii aan halhaleel wax loogu furdaanin dagaal sokeeya inuu
lama huraan noqon doono. tala xumo meeshii ay joogto tala fiicanina waa joogtaaye odayo ayaa markiiba isxilqaamay. cumar oo ah ninkii maxamed dilay waxaa dhalay aadan galayro sidaan hore u soo sheegnay 12 barbaar ay mar qura u hana qaaday wagan farda ahi uu xeryaha ugu jiro dhowr bahood midba garab ku caraaba isla markaasna dambaaba geel 1,000 halaad lagu hilaadiyey. odayadii waxay tala ku gooyeen ninkii dhintay in laga bixiyo mag 100 halaada. 100kaba in reer aadan laga qaado xeerku ma ahayne waxay ahayd intii ay magwadaagta ahaayeen inay wada bixiso. waa la ogyahayoo reer aadan qayb yar baa magtaas kaga soo aadaysa. sidaa darteed ayaan dhibaato halkaas ka iman karta aan cidina u odorosin. weliba nimankii uu ninku ka dhintay guddoonkaas way oggolaadeen oo markiiba hala yeelo ayay kaga jawaabeen. tashigaasi kolkii uu dhacayay aadan galeer wuu maqan yahayoo halkay reeruhu degganaayeen kuma uu sugnayn. geyiga doolood ayuu aroos ku yahay. waxaas iyo waxaas baa dhacay. talana halkaas bay nala dhaafi weydee noo imow fariin dulucdeedu tahay ayaa ku maqan. markii ay fariintaasi gaadhayna inan galeer waxba kama uu soo qaadin. warkuba ma gilgelin. dilka iyo qaantu inaba wax dareen ama gelin. ceesaan gees laga jabiyey dhiiladuba ugama duwanaan. ismaba uu shidayne aqalkii weynaa ee uu ku aroosay ayuu dangiigsaday. maraha wuxuu is yidhi cid kastaaba gacantiisa ha ku dhimatee kol haddii aan nafle cumar wax yeeli karin dan ha u geline ilaa xilkaaga adkayso. qoyska reer aadan cidda qoriga ku tuuri kartaa halkee bay ku uuman tahay. waxaadba moodaa intii uu ku canaanan lahaa falkii uu wiilkiisu ku kacay inuu ugu bogaayey ayna la ahayd wixii uu isba yeeli lahaa inuu yeelay. fariintaasi intii ay aadan iyo doollo ku maqnayd ayaa lafihii ay magwadaagta ahaayeen geel 99 halaad lagu sheegay iska ururiyeen. geelaas oo la hayo reer aadanna laga sugaayo inay ku soo daraan tuludda 100ka ka dhiman ayuu aadan isa soo dhigay. odayadii jifada u ahaa kolkii ay isu soo fadhiisteen ayaa waxay ku yidhaahdeen aadanow ilaahna saamahaaga soo qaad annaguna waaba ku sugayn. taasoo uu kaga jawaabay oo bilaabaanan ka hayn oo uu ula jeeday colaadda aroosan armaan uga sii dara. jawaabtaas bacan halis looma araga kaftan baa loo qaatay. geelii marta loo soo soocay iyo tuludda isaga laga sugaayo ayaa haddana loo sheegay. markaas ayuu qoslay oo qosolkii ku dheeraaday. cabbaar haddii hadal laga dhowraayay ayuu yidhi ragow horta jirtaayo geel ilaah baa xeradayda ku subay oo iguma yara hal keliya bixinteeduna waxba iguma aha. markaas buu aamusay. madaxa ayuu hoos u foorariyey. dhulka ayuu jifeeyey. dabadeedna intuu cirka dhowray oo hadalkii ku noqday ayuu yidhi haa waa runoo geel iguma yara waxaase ceeb iyo foolxumaba igu ah hal aniga igu magacaaban oo sumadda geelayga lihi in geel kale ay ka dhex muuqato ama maalinta ay aroorto dar aan kayga ahayn ay soo gasho. goobtii iyo odayadii fadhiyeyna wuu isaga dhaqaaqay. weedhaas adag ee kibirku ku dhan yahay rag aan ku quusan ayaa ka daba tegey. waxay isku dayeen inay u caqli celiyaan ha yeeshee kuma ay guulaysan. jawaabtii uu siiyey waxay noqotay su-aal uu iyagii ku soo celiyey oo ahayd waynu isxoola naqaane geelayga ma laga helayaa tulid aan sumadaydu ku dhignayn. waxay ku yidhaahdeen maya. kolkaas buu yidhi haddaba sidee baan hasha layga doonaayo ku bixiyaa sumadda miyaan ka leefayaa. si walba markii wax loo tusay waana iyo wax u sheeg kolkii lagala quustay oo lagala samray ayaa faraha laga qaaday. saabulaan baa aroosmay. maxamed ina cabdilla liibaan jilibkii uu ka maqnaa ciil iyo caraa wada digsiisay. waa la isduudsiyaaye wax walba kibir hadalka iyo cayaayirka ayaa uga daraaday. cumar oo ahaa ninkii uu maxamed gacantiisa ku baxay waxaa lagu naanaysi jiray cumar aji. waase wanaaggii lagu bartay iyo raganimadii uu bulshada dhexdeeda kaga caanbaxay. halka uu odaygu arrinta ka istaagay
ayaa la fool xumaatay. tub aad u qalloocan inuu ku dhambaynayo ayaa u muuqatay. markaas buu ku tashaday inuu la hadlo, inuu ka dhaadhiciyo waxa laga doonayaa inay aad uga yar yihiin waxa lagu daboolayo. wuxuu go'aansaday inuu ugu masaleeyo nabad tulud keliya lagu helayaa inay cidla ka qaadasho tahay. markaas buu inta u soo galo fadhiistay ku yidhi, aabbow hashaas bixi oo 3 sababood dartood ku bixi. odaygii baa inta xaggiisii dhowray oo indho quursi buuxiyey ku eegay ku yidhi, bal wad 3da aad sheegaysaa maxay yihiin? markaas buu yidhi, waa marka koowaade aniga ayaa ninka dilay oo madda firsaniye hasha sidaas ku bixi. waa marka labaade aniga oo 12 jir ah ayaan talada tolkay galaye aniga oo maanta 20 jir ah iga saarin oo haddii la ii dilo dib dambeeta u geli maayee taana ku bixi. waa marka saddexaade ninka dhintay waa sokeeye gudab sokeeyena lama hayn karee taana tuludda ku bixi. aadan galayn wuxuu hadalkii inankiisa u qaatay hadal nacas. mar qura ayuu doqon ula ekaaday, sidii isaga oo shir weyn iyo geel lagu dhan yahay ka dabeebanaya ayuu inta istaagay cod cara ka buuxda ugu jawaabay. hadalkiisiina ku soo gabagabeeyey, war wiilka ifka laguma ciiline ma uurka hooyadiis baa lagu ciila. weedhaas oo maantaa kadib ay bulshada soomaalidu badiba u qaybtay, iyadana ba iyo hoog mooye hadalkama damsaga ahaa ee magta soo ururiyey iyo raggii inta isxilqaamay qaalid iyo curadba geerashooda ka soo soocay ayaa tala isugu noqday. waxay isweydiiyeen arrinta aadankii jifada u ahaa uu sidaan ka yeelayo sababta ay iyaga u cuslaynayso. waxaa la garowsan waayey halkii uu odaygu xaajada iska taagay. taasina waxay sababtay go'aan aan qaadashadiisa wakhti badan la isaga lumin oo ahaa nin waliba tuluddii uu hortii geeliisa ka soo celiyey inuu xeladiisa ku ceshado. tulud dheeraada nin ku yabooha oo tii aadan laga rabay halkii ay ka maqnayd soo joojiya la iska waah. colaadina sidaas bay isha baalkeeda u soo jirsatay. maxaa dhici doona? aafadu halkee bay kolka hore tas odhan doontaa? guryaheebay ku dambayn doontaa? maantaa lama ogeyn. ninkiisa waxgarad ahaa wuu garanayay daruuro colaadeed inay geyiga dul hobshaynayaan. waa la isdareensaday. dhiiladii ayaa dhabowday. daa'imo carruureed mooye qaangaad waliba qacda dhici doonta wuu u dhegtaagayay. aadan galayn mooye nin aan dareengelin beelaha kuma jirin. waxa dhacay wixii uu ka falay iyo waxa soo aadan sidii nin moog ayuu goor waa beri ah wiilkiisii cumar aji u yeeray. wuxuu ku yidhi, orodoo geela horweynka ah u kaxee doollo iyo reerihii aan dayrtii hore arooska cusub ka asoosay. cumarna hawlaadsan aabbe ayuu yidhi. nimankii uu ninkooda qabay magtiisiina uu aabbihii duudsiyey oo duulaana iyo waxaa ishelay cumar oo geelii doollo u wada. balli dhowr kilomitir buuhoodle xagga waqooyiga ka xiga ayuu eebba isaga hor keenay. ballaysimo wacan intay u qaateen ayay halhaleel warmihii ugu boobeen. dabadeedna isaga oo gal dhiiga ku dhex jira ayay isaga tageenoo fardahoodii ka jeelladeen. ilaa maantadan la joogo waxaa balligaas lagu magacaabaa cumar aji. sidaa darteedna kol walba oo la ag maraayo waxaa la isxusuusiyaa sheekadaas naxdinta leh iyo talaxumadii dilka barbaarkaas sababta u ahayd. waxse laguma qaato. maxaa xigi doona? dhegaystayaal, marba haddii cumar aji haadda lagu cashaysiiyey maweesaa dhowran. rag allow maxaa dhici doona ayaa la iswada weydiiyey. wiilashiisii tirada badnaa isaga ayuu ugu jeclaaye maxaad aadan galayn ka filaysaa? oo waa ninkaan ogeyne, waa ninkaan sheekooyinkiisii qaar kuu hormariyey. waa kibir hadalka ninkii badnaaye muxuu yeeli doonaa? cumar in la dilay markuu maqlayba dhulka ayaa la wareegay. wuu ismadax maray. wuu qaadan kari waayey. marnaba kuma ay soo dhicin in wiilkiisu uu dhagarqabo ahaa, in maxamed cabdille liibaan uu kas iyo maag u dilay oo weliba qabaal aanu lahayn dartiis ku makalay. kuma soo dhicin isaga qudhiisu inuu diiday
tulud qura oo magtii ninkaa kaga soo aaday inuu bixiyo intaas oo idilba aadan ma xusuusan maxaa yeelay maantaas ka hor lama ahayn ruuxuu dhalay in la dhangadayn karo iska daa in la mawtiye dhinaca kale dhalinyaradii ay cumar xigtada dhow ahaayeen iyo gaar ahaan barbaartii ay wada dhasheen ayaa sida odayga iyaguna dhab u gadooday waxaa ugu daraa barbaar ay kala baha ahaayeen oo inta samri kari waayey halkii la isugu yimaadaba ka marin jiray gabayo iyo geeraaro baroora oo dhiiggu da-ayo bilowgiiba tix fariina ayuu walaalkii ugu diray xabaashii dhowaanta la geliyey isaga oo u ballan qaadaya inuu u aari doono oo rag badan oo awgiis loo dilay uu si degdeg ah aakhiro ugu arki doono wuxuu yidhi wixii hagar ah aakhiraba waad ka hadli doontaaye haddeed iyo haddeedahan haddaad habaqla mayd weydo ifka igu habaar cumar haddaan hibashadaa raagin maalin kalena fariin labaad ayuu godka iilka ugu diray isaga oo toos ula hadlaaya una sheegaya ragga aawadii loo gabawari doono iyo guud ahaan colaadda ba-an ee dilkiisu uu geyiga ciideed u soo jiidi doono wuxuu yidhi cidka da-aya cumarow rag baan calaf u laabnayne aan caafimaad iyo sugayn caano darareede ciiddaba malaha waa la rogi caawa dabadeede oo cudurahooda isku jabi nimanka ciideede kol saddexaadna wuxuu tiriyey geeraar caloolxumo iyo tiiraayo miirani ay ka muuqdaan kaasoo uu ku xusaayo sababaha uusan marnaba cumar aji dilkiisii ku iloobi karayn markaas buu yidhi saajicii cumar aadan silicay u dileen baarqabkii inasdeenyo suudigay ku qasheen saddex jeer noqodkii wallee saa ma ilaawo geed dheer oo aan la laaci karin dushiisa ayay nabaddii isku shareertay odayadiisa majeclaha ahaa ee hortiiba xaajada ka taliyey asii aadan gabayl soo loodin kari waayey ayaa tashi kale dhulka u xariiqay waxay istuseen dhiig dambe oo daata inaan cidina ku bulaalayn inay baatiyaan ayay tala ku goosteen markaas bay gooyeen nimankii cumar dilay markii koodii la duudsiyey in rag loo diro oo waxa ay maagan yihiin ee xiga laga soo ogaado waxaa ergadaas hormaray nin la oran jiray cali baargooye oo dagaalyahan ahaa isla markaasna aftahannimo iyo ergayahanimo labadaba ku tilmaanaa dhowr cisho kadib ayuu cali ku soo noqday halkii laga diray durbadiina shir weyn ayuu wacay saa waa la soo dhoobtay nin hebel la yidhaahdaa ma maqna aadan galayl wuu fadhiyaa inamadiisii oo caro iyo ciil daraaddood salka dhulka ku hayn li'ina way joogaan waxaa isna goobjoog ah qoorwaa jaamac oo aadan ay ilmaadeer ahaayeen isaga oo da-ahna umaamadkii hore ee daraawiisheed soo gaaray wuxuu ahaa nin halkii shiran lagu yahayba ka taliya hase ahaatee sida ina galayd u xuslinta nabadda looga fiicnaa cali baargooye oo madaxa ergada ahaa ayaa afkiisa la dhowrayaa waa la dheerarayoo waa la sugi la-yahay isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado oo nin kol dambe iman doonaa aanu saan iyo saraan hadalka uga kala goyn shanqartii kolkii ay dhammaatay ayuu raggii iska dhex taagay warkiina ku bilaabay ragow waxa aanu maanta wadno nin waaran iyo ninuu wadkiis galay ayuunbaa diida wiil hooggii makaadsadaha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey cumarna ay isxigeen ayaa inta soo booday yidhi war ararta naga daayo noo sheeg waxa aad nimanka kala kulantay ee aad kala soo noqotay cali baargooye wuxuu ku jawaabay 3 arrimood ayaa nimanka ka wadaa waa marka koowaade ninkoodii oo ay duudsiyaan magtiisiina ay ka haraan waa marka labaade cumar aadan oo ay 120 halaad ka bixiyaan waa marka saddexaade
tolka oo wixii dhacay ka heshiiya wiil hooggii makaatiraha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey cumarna ay isxigeen ayaa inta kol labaad soo booday wuxuu cali ku yidhi maxaad adigu kaga tagin lahayd cali baargooye wuxuu ku celiyey weedhii uu hadalkaba ku bilaabay ee ahayd waxa aanu wadno nin waaran iyo ninuu wadkii galay ayuunbaa diida qoorwaa jaamaca oo kaalkiisii inkaaraa gelgelaya ayaa su'aal qalloocan goobtii ka soo jeediyey weedha ah hoyday ayuu halhays u lahaaye wuxuu yidhi hoyday cumar aadan oo nool ma la helaya cali baargooye wuxuu ku jawaabay maya saa qoorwaa baa yidhi haddaba nabadna la heli maayo dabadeed aadan galeyd baa kacay oo inta hadalkii boobay yidhi ma waxaan qoorwaa idhi mase waxaan ninkaa nacabka ah ee fariinta keenay idhi qoorwaa waxaan idhi ina adeero hadalka tidii ha igala noqon oo raggu weysgadiyaaye weedha aad maanta tidi beri iyo weligaaba ku adkayso ninkaa nacabka ah ee fariinta sidee waxaan idhi tala iyo tabartoona kaagama baahdiye wixii aad itari lahayd adigu istar laguma raagine degdeg baa geedkii markaas looga dareeray iyada oo waxa soo aadan aan la hubin lasa malayn karaayo cali baargooye ergeyahankii taladii uu keenay haddiiba lagu diiday ciil buu la caraabay sidii nin waxa dhici doona la ogeysiiyey ayuu caynka hoosta ka geliyey oo geyigii jiribkiisu deganaa oo idil reer aadan galeydna ay ku jiraan 10 geedi ka durkay maxaa xigi maxaa la kala mudan ereystayaal haddii la isu garaabi waayey cumar aadan galeyd hadduu dilay ina cabdilla liibaan jiribkii uu ka dhashay haddii magtiisii la siin waayey markaasna cumar loogu aaray kuwii laga dilay markii loo ergeeyey haddii ay xagga nabadda u xagliyeen haddii ay ogolaadeen ninkoodii oo ay duutiyaan iyo cumar oo ay 120 halaad ka bixiyaan wixii dhacayna laga heshiiyo aadan galeyd iyo wiilashiisii hadday taladaas wacan ku gacan sayreen haddii dagaal mooye tala kaloo idili ay u dhadhami weyday haddii ay intaasiba dhacday ma waxbaa haray sow hoogga iyo ba'a soo aadan lama odorosi karo waatay ku mahmaahi jireen hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama lehe dirir baa la guddoonsaday hase la guddoonsadee maxaa laga helayaa la isma weydiin cumar iyo maxamed labadii nin ee la isugu aaray miyaa ifka ku soo noqonaya mase kuwo kale ayaa la raacin doonaa la isma weydiine su-aashaas inta laga ilduufay ayaa fardo iyo qalab dagaal wixii la heli karay la isu urursaday jilibkii cumar dilay kolkii koodii la duutiyey way qaxeen oo fogaadeen kol haddii ay nabadii ceel dheer ku sharwatay jawaabtii aadan galeyd iyo qoorwaana loo soo tabiyey maxaa dhigaya ruumanka warmaha lagala soo gaari karo waa waxba maalintii dambe ayaa waxaa dooxateeyey aadan galeyd 7 barbaar oo uu dhalay iyo rag uu qoorwaa ku jiro oo dhagar ku tashan waxay heleen baa la yidhi 4 nin oo walaala ah kana tirsan qoladii uu cumar aadan gacantooda ku baxay sheekayaqaanadii aanu soo gaarnay waxay wariyeen oo yaab leh 4toodu walaalaha ay ahaayeen ka sokow aadan iyo iyagu inay habro wadaag ama ilma habreed ahaayeen oo 4tooda iyo isaga hooyooyin uur wada jiifay ay kala dhaleen haddii ay run tahay maxaa talow isku beegay maalintaas maxaa 4toodaba isku meel joojiyey ma dareenka aadanaha ayaa lagu shirabayay u male runta aan duugoobin wax kastaba ha uga jeedee aadan galeyd sidii dugaag gaaja dubatay oo tulud ban joogowday indhaha ku dhuftay ayuu farxad kala batay kaalkii uu sitay ayuu si wacan gacanta midig ugu qaabsaday nimankii 4 ahaa intuusan dilka ku bilaabin
ayaa Qoorwa jaamaca ku yiri war magacaa tiriye islaantii ku habaryarta ahayd mid u dhaamiya u reeb oo Cabdi baa afartooda u raganimo roone isaga birta ka baaji aadan galay wuxuu yiri Qoorwaayow maanta ka hor intaa waad ila dhaantay warbi waaye haddaan Cabdi timo dhaqadaayo boos ilaa war maxaan ka dilayaa ma dhiigiisaan wax moodayaa Qoorwaana taladiisii kuma waadkaysane aadan iyo afartii ayuu faraha isaga qaaday halkii buu 3 Cabdi ku jiro dhegta dhiiga ugu daray boosna uu ku sii daayay Qoorwa oo oraahda hooyday halhays u lahaa ayaa boos oo sii socda farta ku fiiqay kolkaasna aadan ku yiri hooyday walla kaas baa ku dili doona maalintaas kadib dagaalo badan asii yaryar oo aan loo magac bixin ayaa dhacay gaadmo iyo bareer duulaan weyn iyo gulufba dhowr maalmood baa fooda la isdaray guryo doora ayaa haawaday dumar badan baa asay xirtay caruuro aabbayaal lahaan jiray baa agoontoobay tima cagaar aan tiro lahayn baa hadda loo waray gorgorkii iyo tukihii baa inta ku degay hilibkoodii ka haagay iyada oo aan cidina ciidda ku rogin baa 20 jir miiran gaga cidla looga dhaqaaqay gablan iyo guryo ba'ay baa labadii dhinacba la soo gudboonaaday dagaaladaas yaryar asii isdaba jooga ahaa ayaa waxaa ku soo shaac baxay boos ilaawe oo ahaa ninkii uu aadan galay liidi jiray ee maalintii uu hortiisa walaalihii ku laayay isaga dilka ka baajiyay wuxuu muujiyay dabadeedna loo aqoonsaday inuu yahay dagaal yaqaan haddana geesi ah kini adayna ku darsaday dabadeed boos oo isu diyaarinaya goobo waaweyn oo uu maraha islaha way soo fool leeyihiin ayaa u sodcaalay nugaalo ugu horeysay fardaha la isku halayn karo meelihii laga doonan jiray farda wanaagsan in looga bartay ayuu u tegey wuxuu rabaa inuu ka iibsado baxdow ceelkii la baday uu kaga baxo wuxuu u fiirsado markay foofayaan iyo markay soo xiroonayaanba maalmo dhowra kadib ayuu ilaalaystay faras baroora oo ay naftiisu ku xasishay markaas buu go'aansaday inuu kaasi noqdo neefka uu ciid kula noqon doono gorgortan dheer oo adag kadib ninkii faraska lahaa wuxuu ogolaaday 9 qaalmood oo ugub inuu boos ka siisto ha yeeshee faraskii iyo geelii goortii la kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba booday mid marcurada oo igar ahayd ninkii faraska laga iibsadayna intuu muuqeeda u bogay ayuu boos ku yiri dumarka 3 ah ee ii dhaxaa waxay iiga furan yihiin inaadan faras meesha kala tegayn haddii aanad qaalintaas geela 9 ah ku soo tobnayn isna faraskii iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeediina u tuuray maalintaasna wuxuu nugaal kala laabtay roor godan faraskii la baxay ee ciid iyo hawdoo idil ka soo shaac baxay arrintaasi markii ay dhacday ayaa aadan galeed iyo raggiisii tashi isugu noqdeen waxay isweydiiyeen war kolley dagaal waa lama hure boos ilaawe ayaynu ku beegnaa dagaalyahanadii reerka midba markii magaciisa la soo qaaday ayaa ugu dambaystii waxaa la isku raacay cali baar gooye mooye boos cid u babac dhigi kartaa inaysan jirin waxaase la isxusuusiyey ninkaasi inuu iyaga ka taloobay oo geyikooda ka fog uu u guuray kadib kolkii laga tala diiday ergeyntiisiina loo tixgelin waayey halkii lagu sheegay inuu degmaystay ayaa rag loo diray hase ahaatee in reeraha lagu soo celiyo waa lagu guulaysan waaye waa laga soo quustay in dagaalada la soo geliyo isaga oo weli hibanaya sidii loo galay ee taladiisii wacnay dabaysha loo raaciyey
welibana uu aadan galeed ku aflagaadeeyey ayuu ku soo jawaabay nin ceelay igu ceel bixi maayo. hug iyo niyad jaban baa lagala soo laabtay. nimankii boos ilaa uu hormuudka u ahaa duulaan bareera ayay soo qaadeen. maalintaasna waxaa dhacday goobtii weynayd ee lagu hoobtay, goobtii taariikhda bulshada ku gashay magaca ah daboolan. inkastoo labada dhinacba uu meydku tiro beelay, haddana nimankii aadan galeed iyo qoorwaal ahaa ayaa la bajiyey oo halkaas lagu daaduumiyey maalintaas. maxaa xigi doona? ma halkaas baa lagu kala joogi, mase hoog iyo ba' kale ayaa dambeeya? dhegaystayaal, hiddaha soomaalida kuma jiri jirin qolada maalintaas laga ilhelaa inay isdhiibto. sidaa daraaddeed aadan galeyd iyo qoorwaal jaamaca raggii lahaa, inkastoo goobtii daboolan lagaga adkaaday, haddana inay aadsadaan mooye inay sidaas dagaal kaga haraani facshar bay la ahayd, geeri bayna ka xigeen. maalintii dambe labadoodii oo isguubaabinaya dirirta soo socotaa siday noqon doontana malamalaynaya ayaa niman socota ay u yimaadeen, kuwaasoo markii la iswaraystay u sheegay boos ilaawe inuu nugaal u sodcaalay, dhowaana kala soo noqday faras aan isaga oo kale la adag lana maqal, magaciisana roor godan la yidhaahdo. dharaartaas buu aadan galeed isna wuxuu kabaha u iladay nugaal, oo sidaan hadda ka hor idiin sheegay fardaha waxaan loo doonan jiray. wuxuu ka jiriyey ceebtii daboolan faras ka mayra. isla ninkii farda wanaagga lagu bartay ee roor godan uu boos ka soo gadan jiray ayuu abbaaray. markii ay kulmeenna ninkii baa ku yidhi, aadanow, faraska aan kaa gadaayo wixii aan ku idhaahdo haddii aad iga siinayso, aniguna ballan baan kula gelaya. aadanna wuxuu ku jawaabay hawraarsan iyo guddoon. ninkii faraska ahaa ayaa markaa yidhi, wixii uu eryadaa haddii ay ka baxsadaan, wixii isaga eryadaana ay gaaraan, xoolahaagu waa ku celis. ninkii faraska lahaa intuu 12 qaalmood guddoonsiiyey ayuu aadanna nugaal kala soo laabtay. faras isna ciid caan ka noqday waa qadowlaaye, faraskii la baxay. galeyd iyo raggiisii shir bay isugu yimaadeen. su-aashii ahayd boos ilaawe ayaynu ku beegnaa ayaa mar kale la isla soo qaaday. aadan galeyd wuxuu yidhi, aniga iyo boos isu kaaya daaya oo 3 arrimood dartood iigu beega. waa midda koowaadee faraska iyo qadowlaaye wuxuu eryadaa kama baxsadaan, wixii eryadaana ma gaaraan. waa midda labaade boos waa il keliya, anigase labaduba waa ii dhan yihiin. waa midda saddexaade midigta oo qura ayuu boos wax ka tuuraa, anigase midigta iyo bidixduba waa isugu kaymidoo waxaan ahay 2 midigle. hadalkama dambayne sidaas baa lagu faataxaystay. goobtii la sugaayey ayaa dhacday. farda la hubsaday iyo dhalinyaro ku joogta ayaa la isula soo baxay. waa barqa dheer, hootooyinkii iyo warmihii buu cod waliba loolinaya. fooda ayaa la isdaray. maxaa nin door dhulka yaal? maxaa garmadoobe xiilmihii laga soo daadshay gegida jiifa? maxaa keligiis goobta saqlaynaya baxdow ninkii lahaa laga tuuray? goobuhuse kala magac lehe, tani waa rawax degan. dhinac waliba intii laga dilay wax kuma qiyaasan jirine, kolba kii la batiyo ayay ceebta iyo magac xumadu raaci jireen. waa ayaanba ayaane maantana waxaa la batiyey oo goobtii laga helay boos ilaawe nimankii uu ammaanduulaha u ahaa. waa la baqa eriyey. koodii la gaarana warmihii iyo eebooyinkii baa lagu boobay. ninbase nin buu eeganayaaye, aadan galeyd ayaa meel yaro durugsan wuxuu ka arkay boos ilaawe oo ku jooga faraskiisii roor godan la baxay. isna qadowlaaye intuu nadigii 2-3 jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray. haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hootada meel halisa kaga dhufto, ayuu qadowlaaye hore u booday, isagoo u qaatay gacantii uu aadan kor u qaaday in nabadkeeda ku soo socdo. faraskii markuu sidaa hore ugu booday ayuu boos ilaawana aadan hooto halgaad ah ka gaarsiiyey oo jeeniga midig inta kaga dhuftay dhinaca kale ka dusiyey, iskana dhaqaaqay.
aadan kolkuu arkay inuu dilan yahay ayuu ilqooreedda ka eegay boos oo dhaafaya, ha yeeshee isla markiiba neefkiibuu ka dhacay. soo halkaasna kuma ay rumoobin weedhii qorwaa ee ahayd hooyday walle kaas baa ku dili doona. waxaa la yidhi raggiisii oo bidhaanta qadowlaaya oo aan lagu joogin ay soo kicisay ayaa soo dul joogsaday. caynaankii faraska ayuu weli ku dhegan yahay, naf qumanise kuma jirto. waxay ku yidhaahdeen, war aadan bal waran sidee bay wax kuu gaareen? isaga oo dhab u taahaya ayuu yidhi, maxaad iga waraysanaysaan? markaan tabar hayena tala ma hayn, hadeeroo aan tala hayana tabar ma hayee. adduun ikhatal waxay noqotay maahmaah iyo oraah lagu taamilo qaato oo aayaha isla weynida in badan inaga baraysa. maalintaas kadib maansayahano badan oo Soomaaliyeed ayaa sheekadaas gabayadooda ku xusay, iyaga oo bulshooyinkii iyo beelihii ay ku dhex noolaayeen aayaha talaxumada ku tusaaleynaya. waxaa malahayga ugu caansan Ismaaciil Mire oo gabaygiisii ragow kibirka waa lagu kufaa ku taariikheeyey qaar ka mid ah raggii Soomaaliyeed ee isbiday dabadeedna ay laandayri la duushay. tabkii daraawiishta kadib waa gabaygii uu tiriyey ee uu ula jeeday saakinkii kibirka badnaa ee carab dheere la oran jiray. ingiriisku markuu laascaanood qabsadayna uu u soo magacaabay. waa gabaygii uu ugu furfurtay alartiisii halqabsiga noqotay. inkastuu kallaho ama kabtiyo ama kuf dheer fuulo badka luun ku jira kay ku tahay amase koob shaaha kulligood addoomaha rabbow qaybshay kimistiiye qof walbaba wixii loo katibay waa la kulansiina nina inaanu soo kororsanayn kaaha la ogaado. intaasoo uu ku xejiyey dagaaladii qabaalka iyo talaxumadii u horseeday. lixda koosee reer Caligeri ee kow isaga siiyey kasii waaye wuxuu waa qabaal waana kabanaaye ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado. tuduc kale oo isla tixdaas ku jirana wuxuu Ismaaciil si gaara ugu xusay aadan galayr iyo gardaradii uu ku baxay, gaar ahaanna weedhiisii ahayd hashan sidee ku bixiyaa masumadan ka leefayaa iyo wixii uu ka dheefay. waa kii lahaa karaankuu lahaa ina galay kahay gadaalkii iyo kaarkuba ma joogeen, hadduu keeno tuludii iyo baallacad keliyaha kuma jareen, kii uu quursaday ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado. maansayahankii caanka ahaa ee Ayax Maxamed Dhowre la oran jiray ayaa isna sida Ismaaciil yeelay. isaga oo u dan leh niman ay wax badan degaan wadaag ahaayeen oo uu jeer qoonsaday ayuu tiriyey gabaygiisii quursidiid la baxay. markaas buu tuducyo ka mida wuxuu si kooban ugu xusay qabaalkii uu Cumar Ajidalooli jiray iyo colaadii ka dambeysay ee lagu hoobtay aadan galayrna uu ku baxay. wuxuu yidhi, qodob kalena waa duuliyadeeda qodan ka faalleeyey ma jeerteen qaraabo iyo tol iyo qiimi kala waaye caligelina xoolo iyo qab iyo waayo quruxdii iyo qaaskii ku dhacay aadan buu qaaxadii jaray ee qabaalkii furee bay lahayd waa yar qowraray. gabyaa kale oo la oran jiray Sugulle Xilsi Godgod ayaa isna gabay dheer oo 1930 uu tiriyey sheekada ku soo qaaday. isaga oo la gasnaqsanaya ugaaskii qoladooda oo uu abaadlac ka tirsanayay kibirna uu maraha ku dareemay ayuu qayb gabaygaas ka mida wuxuu ku xusuusinayaa talaxumadii dhacdada qabaalka ku wacnayd iyo hoog iyo ba wixii labadii qolo ee isku maagay ka soo gaaray. markaas buu yidhi, diriqsa waxaan dhammayn baa kharibay dil iyo daaroodee talaxumada doogteeda wa lagu dufoobaayay degadaas ka badan reer intuu lumiyey deelqaafi qabaalkii daloolaba rag buu digay laftiisii iyo dun hadday gashaan kama kaceen degaladoodii iyo caligerigu doorkuu ahaa gabalkii daaduuye suubaan wuxuu diriciya dhalay mawdka loo dadabiye rawaxii daboolan buu ku go'ay duulkii reer gorooday dugaa kama dhargeen kibir haddaan loogu dowgelin. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo.